qof mar walba ixtiraam muujinaysay jacayl dhab ah aad u qaaday muddo aad wada socoteen ba waxaad kala kulantay inuu ku bloogay ama waxaad kala kulantay in wicitaano badan hadaad wacdid ama message aad u qortid inuusan ka soo jawaabin hadduu ka soo jawaabo uu ka soo jawaabayo wax kooban ama wax aan tiro badnayn ama laga yaabay hadduu soo jawaabayo inay waqti qaadato maalmo bilooyin maxaa sababa saddex qodob ayaa sababaysa qofku inuu ku baloogo ama xiisuhu uu yaraado qodobka koowaad waxay tahay inaad adigu sababaysid qodobka labaad waxay tahay in labadiina aad sababaysaan qodobka saddexaad wuxuu yahay in asiga uu sababayo haddaba qodobka koowaad sidee ku sababaysaa waxaan ku xasuusinayaa bilaadanka kan taajirka iyo kan baahida haysa iyo kan xanuunsanba haddaad baahida inta uu u qalmo in ka badan u muujisid qofkaasi waa kaasii fogaanaya qofkaasi waxa uu kaa soo qaadayaa waxbay ixtiraamkii bilaadantinimo ayaa meesha ka baxayso waayo baahi uusan u qalmin baahi ka badan ayaad u muujisay baahidaasi marka uu dareemo waxa laga yaabaa in uusan ku ixtiraamin marka uusan ku ixtiraamin wicitaankaaga uu dhibsado marka uu dhibsado kadib uu ku baloogo haddii qof uu kugu baloogo baahi aad u muujisid darteed qofkaasi uma qalmo ilmahaaga aabahood ama ilmahaaga hooyadood qofkaasi waa inaad go'aan dhab ah ka qaadataa dib damba aadan noloshaada ula wadaagin waayo qofku waa inuu naxariis leeyahay qofku waa inuu dareemi karaa baahida loo muujinayo qodobka labaad in asiga uu sababo qof walba naga mid ah asxaab iyo famil ayuu leeyahay ama meel ayuu ka shaqeeyaa qofkaani waxaa laga yaabaa in jawiga uu ka qaldan yahay ee dad kale jawiga ka soo qaldeen asxaabtiisa familkiisa ama meesha shaqada hadduu adiga nafisaad kaa soo raadsado laga yaabaa inaad adigu aadan ogeyn ama aadan dareemeynin kadibna aad buuq ku furtay buuq marka aad ku furtay laga yaabaa inuu meesha xanaaq ka dhaco kadibna uu ku baloogo qofka saa hadduu kugu baloogo wuu soo laabanaya kaliya waxaad ku dadaashaa inaad isdejisid kaliya waxaad ku dadaashaa inaad arrimahaaga naftaada ku mashquulshid marka aad naftaada ku mashquulshid qofku xanaaq markuu ka soo dib u soo laabanaya laakiin haddii qofku intuu ku baloogo aad ciirsatid oo aad nambaro kale ka wacdid ama aad meelo kale ka raadisid ama aad baahi saa'ida u muujisid qodobkii koowaad ee ahaa baahida badan ee bilaadanka loo muujinayo ayaad ku dhacaysaa qodobka marka ku dhacday qofku waa kaasii fogaanaya qodobka saddexaad labadiina ayaa sababi kara labadiina waxa ku sababi kartaan bilaadan baatihiin carabi ilka iskugu dhow way isqaniinaan waxa laga yaabaa inaad qofka ka masiirsiisid ama uu ka masiirsiiyo ama arrin ay dhacdo arrinta marka ay dhacdo qofkaani uu ku baloogo haddii adiga dhankaa ka timid masiirsiin aad ka masiirsiisay ama uu ka masiirsiiyey mar walba waxa aad ku dadaashaa baloog hadduu meesha yimaado inaad isdeji kartid inaad naftaada ku mashquuli kartid naftaada haddaad ku mashquushid oo aad mar walba nolol kale aad naftaada u samaysid qofku wuu soo dabagelayaa haddii uu ku baloogo kaliya wuxuu kaa baloogo ciwaanadiisa laakiin asxaabtiisa ciwaanadiisa buu kaa soo fiirinaya waxa uu ogaanayaa inaad adigu isbedel samaysay waxa uu ogaanayaa inaad farxad ku nooshahay hadduu arkay inaad murugo ku nooshahay qofkaasi kuma soo laabanayo laakiin hadduu arko inaad adigu caadi u nooshahay inaad farxad ku nooshahay qofkii xanaaq ayaa ka baaba'ayo wuu degayaa baloog ayuu kaa soo qaadayaa qofkaasi baloog hadduu kaa qaado uu kula soo hadlo ixtiraamka bilaadantinimada ka tagin si wanaagsan u ixtiraam qofku wuu qaldami karaa wuu xanaaqi karaa laakiin qofku haddii uu ku xanaaqo baahi aad u muujinaysid weligaa ha soo dhaweynin mar walbaba ka fogow waayo qofkaani waa qof aad mustaqbal la sameynaysid mustaqbalkuna ma aha dheeldheel waayo waa wax adiga noloshaada inta dambe oo dhan aad la noolaanaysid guriga aad dhisanaysa ha ahaado guri qofka baahida aad u muujisay u qalma ee aanan kugu dhibsan ee aanan kugu nicin haddii aad videogan ka heshay asxaabtaada la wadaag meel walba dunida ka joogtid taxadar allah kugu xifdiyo waa saaxiibka Shaahid Biisani assalaamu calaykum ku dhahaya